وجعل ليس له تعيشين صح يا سمعها وليست نولاد aad bad ku madcilay kuminkeena quruxda badan leh ما شاء الله aad ku soo jawaabteen كنا حو نفتوا kii ka naxow naftawa haddana waa kana amaalkiisa la keenay aad iyo aad uga xumahay tiisa fiitusmana waa ka xumaay tanna waa ka xumahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran barteeda youtube-ka meel walba oo aad dunida ka joogtaan hadday habeen idin tahayna habeen wanaagsan hadday maalin idin tahayna maalin wanaagsan intaa kadib waxaan rabaa muuqaalka baraha bulshada la wareejinayo ee gabadha wariyaha ah maamadana ah qofka weynna ah amaalkayse iyo ninka ayada qabo muuqaalkaas oo ah muuqaal private ah muuqaalkaas oo ah muuqaal aan loogu talagelin in baraha bulshada la keeno hase ahaatee si qaldan ku soo baxay sida iga muuqata muuqaalkaas ayaa la wareejinayaa baraha bulshada meel walba ayuu yaalaa aad iyo aad ayaan uga xumahay sidoo kale waxaan arkay dad badan oo youtuber ah oo ka hadlayo hase ahaatee waxaan rabaa inaan anigana aan fikrikeyga ka dhiibto ama aan ka hadlo waxa muuqaalkaas ka qaldan iyo sida ay wax u jiraan iyo xaaladdu sida ay tahay waa tahay horta waxaan aad uga xumahay in gabar Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed noocay doontaba ha ahaato dumarkoo dhanba in la ceebeysto in private-kooda public la keeno in gogasha ayaga iyo ragga qaba dhex maraysa ama jamaaca ay sameynayaan in meel public la keeno aad uga xumaa midda labaad ayaa waxay tahay oo aan ku dhaliilayo dumarka ayaa waxay tahay dhowr jeero hore waa ay ka digeen dad badan oo youtuber ah ama dad badan ay ku xiran yihiin ama saameyn kula baraha bulshada oo aan aniga kamid ah waa ka dignay in dumarku aysan marnaba duubin muuqaal xilliga ay gogasha la wadaagayaan ragooda laakiin waxaad moodaa in dumarku aysan dheg jalaq u siineen waxyaabahaas laga digayo khatartana ku ah sharafta ayaga ay leeyihiin waa tahay mar maaha laba maaha saddex maaha afar maaha maalin walba waxaan aragnaa gabar yar oo Soomaaliyeed oo qaawan oo nin aamintay oo muuqaal u dirtay oo la soo dhigay baraha bulshada kuwa waxaan aragnay ragii qabay markii ay isqabtaan ay fadeexeynayaan oo ay baraha bulshada keenayaan waa tahay aniga markii qof weyn oo 30 sano ama 40 sano ama 50 sano ku dhow oo dumar ah la keeno baraha bulshada ama la fadeexeysto ama muuqaal aan munaasab ahayn laga keeno wallahi waan naxaa waxaan uga naxaa si aanan uga nixin kuwa yaryar maxaa yeelay gabdhaha yaryarka ah waxa u geey kara khibrad la'aan waxa u geey kara waaye aragnimado ku yar waxa u keeni kara in maaragta muuqaal laga keeno yaraanta da'dooda waxyaabo badan laakiin qof weyn markii aan arko muuqaal anshaxuma ah ama muuqaal fadeexa ah ama muuqaal de aan munaasab ahaynba ma fahanti sidoo ku dhacaba ku dhacay ama ninkeeda ha ahaado ama saaxiibkeeda ha ahaado qof weyn oo macnaha jira 50 sano 40 sano markii aan arko in baraha bulshada la keeno aad uga naxaa maxaa yeelay aniga waxaan mar walba ka fakaraa gabdhaha yaryarka oo aan israada amay maaragtay ka hoos baxdaa laakiin qof weyn oo ay ka hoos baxday waa dareemi kartiin waa tahay saddex asbuuc miyaa maaqaan ah hadda ka soo wareegato markii safiitusmo oo gabar walaasheena oo fanaanada baraha bulshada la hadalhayay muddo asbuuca haddana waa kana amaalkaysa la keenay aad iyo aad uga xumahay tii safiitusmana waa ka xumaay tanna waa ka xumahay safiitusmo web amaalkaysi web maalin kasta waxaan ku jiraynaa qof weyn in baraha bulshada la keeno cawradiisa sideen uga joogsan karnaa waxaan uga joogsan karnaa gabdho dumarow kuwa yaryar kuwa weyn adiga bili aadan ma tihid miya qof wax maqlaya ma tihid miya qof aqli la ma tihid miya sawir maata war ninka ku qabo iyo adiga markaad gogol wadaagaysaan maxay tahay xigmadda ku jirto in jirkaaga aad duubto jooji
haddaad horay u samaysay taleefankaaga kuwa ku jiro tirtir haddii aad ku fakerayso ama aad isleedahay xasuus ka dhigo walaalay ka har ku quus qaado wixii ku dhacay gabdhaha walaalaha ah haddaan kuu sheegaa jooji hore waa kuugu sheega jooji waad arkaysaan waxa maalin walba dhaca waad la socotaan 1 maaha 2 maaha 3 maaha 4 maaha 5 maahan ayaantan waxaa soo baxay rag u ekayaal rag ma dhihi kara nin gabar cawradeeda keenayo aniga mooryaan 10 nin dilayo igala karti badan ama igala fiican ama igala dadnimo fiican nin 50 nin dila hal mar nin 100 dilay iyo nin gabar cawradeeda banaanka keeno wallahi waxa fiican ninka dilaaga ah oo billaahi oo tallaah barkii kama suurtoodo inuu gabar ceebeysto dilaay kastuu yahay waa tahay aniga ma aqaano qaabka muuqaalkan oo uga soo baxay amaalkiisa oo aan wada ogsoonahay inay tahay gabar gabdhaha dhiirigelida sidoo kale ah wariye wanaagsan qof baraha bulshada aad looga yaqaan ah ma aqaano sidoo muuqaalkan uga baxay iyo qaabka uga baxay laakiin waxaan idin xaqiijinayaa ama aan hubaa in amaal iyo ninka ay maaragtay isqabaan in amaal ninkeeda uu yahay in amaal iyo ninkaas ay xalaal isku qabaan inkastoo ay xanuun tahay in qof weyn oo dumara iyo nin weyn oo maaragtay odaya in wixii private-ka u ahay ama qaaska u ahay ay bulshadu daawato wallahi aada uga naxay wallahi si aada uga naxay aada uga xumahay walaalayaalow dumarow in walaalkiina ahay aniga haddaa rabto ha jeclaanin aniga haddaa rabto i arag qof micnaha aadan xiiseen ama maaragtay aadan maaragtay jecleen i arag muhiim ma aha aniga waxa ahay aan ahaado laakiin taladeeda waa ku anfacaysaa qaado walaalay cawradaada ha duubin walaalay jirkaaga ha duubin haddaad ninkaaga gogol la wadaagayso ilaaha kuu baneeyey waa xalaal haddaad macsi samaynayso ha isduubin markhaati adiga ha isku noqon taleefankan aad leedahay ha aaminin qof kalaa kaa dirsan karo qof kalaa maaragtay isku dhici kartaan si kaloo kaaga bixi karaa kuwii isqabay amaal iyo ninkan hadda waa isqabaan xalaal bay isku qabaan waa ninkeeda kuwii isqabay muuqaaladoodii ayaa fakanaya adigoo nin aan ku qabin haddaaba wax la samaynayso aniga kuma dhahaya la samayn adiga ilaahay idinta la haddaa rabta la samay haddaa rabta la samayn laakiin annaga indhaxumaha na tusin haddii kale abababababa gabar qaawan jug abababababa adaa lagu hadal heenaa cawradaada aa laga sheekeenaa dadka dad xunaa jira aniga wallahi fideoga amaalkayse waa la iisoo diray wallaahi billaahi tallaahi markii la iisoo diraan ku dhahay dhulka allah ila gooyo meeshaas aan fadhiyo ilaahu ila gooy waa iska tirtire inaanan fiirin xataa ma garatay luuqa alla igu soo diro waa ka naxay youtube-ka imid youtubero badan oo ka hadlaya arag aad iyo aad uga xumahay anyway waa yukaar loo soo idin leh walaalayaalow dumarow joojiya muuqaaladan aad iska duubanaysaan xilliga aad wax samaynaysaan haddii kale wixii walaalaha ku dhacay aa kugu dhacay adne waa yukaar loo soo idin leh guuleysta meel walba adduunka ka joogtaan haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir haddii aad hore noola joogtana waa mahadsantahay